بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوعنا ما أنت عن كهد لينه وحكسها بسيه هدي لها يقدره جبيرة أما كمها قف مركي اللي صاره سيدة وسلاد أتكن لها أي موضوع نقصية dadka qaar kamid waxaa dhacdo mararka qaar qofku inuu ama gacan ka jabo ama uu lug ka jabo ama maba ahanbe la saaro faashad meel dhaawaca faashad laga saaro ayaa mararka qaar dhacayso qofkaas asaga ah sidee buu salaadii u tukanayaa shayga ama ximintii jiran sidee buu u dhaqayaa horta dadka qaar kamid ah markii ay jiradaan ama dhaawac uu gaaro salaadaba way iska daynayaan dadka qaar ka mid ah isbitaalka iska jiifayaan ama isbitaalka iska seexanayaan salaaduna sideeda waxay ku dhici karto oo qofku iskaga dayn karo salaada waa wax kooban ama cudurdaar kooban weey qofku salaada wuxuu iskaga dayn karo qofku haddii uu istaagi waayo sharcigu wuxuu amraya inuu inta fariisto uu fadhi ku tukado haddii uu fadhiga awoodi waayana sharcigu wuxuu amrayaa qofku inuu jiifsado oo uu seexdo dhaman u seexdo haddii uu taas awoodi waayana sharcigu wuxuu amrayaa inuu u seexdo gadaal u seexdo hadduu taas awoodi waayana indhaha ayuu ka tukanayaa qofku hadduu indhaha ka tukan waayana qalbigu ka tukanayaa marka xaaladna salaadu ma dhacayso haddii cadow kaa hor yimaado oo dagaal uu ku qabsado adigoo ordaya ayaa salaaddii tukanaysaa salaaddaas waxaa la yidhaha salaatulkhawf qaabka loo tukanayana axaadiista saxiixa iyo aayadaha qur-aankaaba waa sheegay ilahay aayad qur'aana wuxuu ku leeyahay fain khiftum farijaalan aw rukbaanan haddii aad baqdaan adinkoo lugaynaya iyo adinkoo gaadiid saaran intaba salaadda tukada ayuu ilaahay leeyahy marka qofkii cadowga cayrsanaya ama bahalku cayrsanaya xitaa hadduu salaaddii waajib ku taho laga rabo qofkii miyirkiisa qabay ee isbitaalka jiifa asna waa ka sii daranya sidaas daraaddeed waxaa waajib ku ah dadka isbitaallada jooga ama dadka jiran ee jiifo inay salaadda ilahay tukadaan baa waajib ku ah xitaa haddaysan dahaaro qabin aysan dahaaro qaadan karin xitaa waa inay sidooda ku tukadaan xitaa qofkii wuxuu xirta hadduu waayo waa inuu sidiisa ku tukado marka intaas markaan uga soo tagno qofkii hadday ka masaaran tahay ama gacan ha ka saarnaato ama lug ha ka saarnaatee waan kala fiirinaynaa horta kamadaasi hadday ka saaran tahay qofka xibnaha laga booraysto meel aan ahayn hadday ka saaran tahay xibnaha laga booraysto waa labada gacmood iyo wejiga inay intaas ka saaran tahay iyo waxaan u kala fiirinaynaa iyo jirkiisa kale inay ka saaran tahay marba kamuhu hadduu saaran yahay labada gacmood wixii halkaas ka bilowdo xusulka wax yar afkiisa hore oo meeshaas xusulka wax yar ka shishayso intaas hadduu kamuhu ka saaran yahay ilaa intaas ama meel ka mida hadduu ka saaran yahay ama wejiga meel ka mida hadduu ka saaran yahay kamuhu qofkaasi mar kasta salaaddaas waa soo celinaya salaadda uu weysaystay mar weliba waa soo celinaya tusaale ahaan haddii qofka kama gacanta ka saaran yahay wejiguu soo dhaqanayaa wejiga markuu soo dhaqdo gacantan wuxuu dhaqayaa inta kamuhu saaran yahay maahane inta fiyow buu dhaqayaa inta fiyow markuu dhaqo markaas kadib ayuu booraysanaya wejiguu marinayaa boorka labada gacmoodna waa marinaya sababta aan u booraysanayaa waxaa waa ama sababta qofku u booraysanaya waxaa waa meeshii uusan dhaqinin ee kamuhu saarnaa darteedu u booraysanaya markuu booraysto kadib ama markuu booraysto ka hor baan idhaahdee wuxuu masaxayaa meeshii kamuhu saarnaa ayuu masaxayaa gacantaa wuu dhaqay intii caafimaadka qabtay ilaa kamuhu wuxuu saaranyay ilaa inta buu kamuhu saaranyay inta caafimaadka qabta waa calaacasha iyo buu dhaqaya meeshii kamuhu saarnaana wuu masaxaya biyihiibu ku masaxaya kadibna wuu booraysanaya kadibna gacantii kaluu sii dhaqaya saasuu kusii dhammaystiraya ma bannaano qofku inuu isagoo gacanta kama ka saaran tahay intuu wejiga soo dhaqo oo gacantii inta caafimaadka qabta dhaqo intii kala dhaqo lugihii sii dhaqo kadib inuu booraystaa ma bannaano
markaad maraysid meesha kamuhu saaran yahay waa inaad booraysato meeshaas markaad marayso waa inaad booraysato saas markii aad u booraysato oo aad dhaqdo gacantii kale iyo lugihii aad dhaqdo intii kamahaas ku saarnaa salaaddii aad tukatay waa soo celinaysaa intii kamahaas ku saarnaa salaaddii aad tukatay haddii 2 bilood kamuhu ku saarnaa 2 bilood salaaddooda waa soo celinaysaa waa soo qallaynaysaa hadduu 1 bil ku saarnaa hadduu 3 bilood ku saarnaa sanad hadduu ku saarnaa salaadihii inta kamahaas gacmaha labada gacmood ee wejiga kaa saarnaa waa soo qadaynaysaa kow haddii uusan kamuhu kaa saarnayn gacmaha ee lugaha kaa saaran yahay meelaha laga booraysto meel aan ahayn hadduu kaa saaran yahay waxaa loo kala fiirinayaa markii lagu saarahayey inaad daahir ahayd oo aadan weyse qabtay oo aadan janaabo qabinin ayaa la fiirinaya haddii aad janaabo qabtay ama aadan weyse qabinin ayana waa sidii oo kale waa soo celinaysaa tusaale ahaan lugtaanaa maanta ka jabtay lugta markaa maanta ka jabtay kama ayaa lagu saaray waxaa la fiirinaa markii kamaha lagu saarayay ma weyse qabtay haddii aadan weyse qabinin wax allaaliya wixii kamahaas aad ku tukata waa soo celinaysaa haddii aad weyse qabto caadi ahayd daahir ahaydna la soo celin maayo ee waa u booraysanay bas markaa lugta maraysid wejigaa soo dhaqdo gacmaha soo dhaqdo madaxa soo masaxdo lugta markaa maraysid intii caafimaadka qabtaa dhaqaysaa intii kalena waa u booraysanay waxaa marinaya wejiga iyo 2 gacmoodaa boorka marinaya meesha kamaha saaran yahayna korkaad ka marinaysaa biyahaad kor ka marinaysaa marka haddii aad weyse qabtay markii kamaha lugta lagaa saarayay salaadaas ma soo celinaysid haddii aadan weyse qabinin markii kamahaas lagu saarayay haddii aadan weyse qabinne ama aad janaabo qabtayne salaaddii aad ku tukatay kamahaas oo dhan waad soo celinaysaa adigoo weysaysanayo oo haddana booraysanayo baa haddana kamaha salaaddii aad ku tukato dhan waad soo celinaysaa marka qofku markuu maxaa la yidhaahdaa jabiirada ama kamuhu u saaran yahay sidaas ayuu u weysaysanaya intaas waxaa soo raaca kamuhu hadduu ku saaran yahay meeshuu rabaa kaa saarnaa ama gacan ha kaa saarnaado ama maxaa la yidhaahdaa ii sheeg lugaha kaa saarnaado markaa salaad aad u booraysato oo salaaddii duhurkao kale ayaad booraysatay intii kalena jirki intii kalena waa dhaqday markii salaadda casirka la gaaro booraysigii baa soo celinaysaa ma ahana salaaddii casirkan iska sii tukan maysid booraysigii ay keligiisa aad soo celinaysaa meeshii ma dhaqaysid jirkii kale haddaad weyse qabtay waa haddaad weyse qabtid booraysigii bes aad soo celinay haddana salaaddii maqrib baa la gaar haddana booraysigii baad soo celinay haddana cishihii baa la gaar haddana booraysigii ayaad soo celinaysaa salaad kasta oo la gaaro booraysigii waad soo celinay ilaa booraysiga 2 salaadood oo waajiba ma lagu tukan karo marka kamuhu waa sidaasa haddii uu kaa saaran yahay xibnaha kale oo weysada ahayna caadi weeye waa weysaysan kartaa oo maaragtay xibnahaaga caadiga ahaa ayaad ka weysaysanaysaa marka dadka waa inay ku dadaalaan mar walbaba dadku waa inay ku dadaalaan inay kala ogaadaan marka salaadda la soo celinayo marka la soo celinayo sidoo kale waxaa ka sii daran dadka salaadda dhanba ka tegahayaba ama jiranoo jiifo isbitaallada jiifo salaaddaba aan tukanaynin dadkaasna ayaguna waa inay ogaadaan inuu ilaahay kula xisaabtamayo salaadda miyirkiisa hadduu qabo qofku oo uu miyirkiisa qabo marna salaaddu ka dhici mayso hadduu sidaas ku dhintana isagoo dembaabay ayuu dhimanayaa marka qofku waa inuu ku dadaalaa intuu miyirkiisa qabo salaadda inuu tukado haddii kama saaran yahayna sidaan soo sheegnay ayuu noqonayaa oo marna salaaddii wuu soo celinayaa marna ma soo celinayo hada billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi